السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وناكسن داوديال مسلمين الصوماليات مeel kasto joogtaan mar kale waa walaalkiin wariye Soomaaliyeed Maxamed Baaruud Xuseen xiriyaha qaxootiga dhadhaab gobolka Qoyi Bari waxaan maanta la joogaa walaalkay wiil Soomaaliyeed Farxaan Maxamed Salaad Farxaan Bishil Farxaan Salaad Maxamed waa wiilkii bil ka hor ee xaaskiisa gubtay magaalada Gaarisa isbitaalka ku jiray muddo bil iyo maasadaada aan soo bandhignay isagoo aad u dhibaataysan halli karin filimada ay lugta uga suran tahay dhaqdhaqaaq jirin Farxaan maanta dib loogu soo celiyay xerada qaxootiga ee Dhagaxley toddobaadkan maanta marka gurigiisa ku soo booqday meesha uu joogo Farxaan baan sheekaysanana Farxaan aad baan ku salaamullah iska waran bal alxamdulillah haye ilaahay mahdi haye waxaan sheegay waa dambi haye ilaahay wuu naxariista waa ka maanta aan qoor fadhi maasha ninkii darada garanaysa aad iyo aad goonka la qabtay aan halli karin fariisan karin midaarahay alxamdulillah ilaahay wuu naxariista maasha Allah muslimiinta dhammaan meel walba ay joogaan waad mahadsantihiin aad bay u soo gurmadeen reer Gaaris sidoo kale ilaa waa dadkan la joognay aad iyo aad ku dhex jirnaa aad iyo aad oo xaafadaha marka raashinka soo booqanayso kala orday waad mahadsantiin inigana ma sha Allah muslimiinta dhamaan meel walba joogto way mahadsan yihiin aad iyo aad maxaan baaruudna wuu mahadsan yahay aad mudan taqaatiirta aan ka imaadayna sidoo kale way mahadsan yihiin ayagana aad iyo inay arki doonaan u maleynay adigoo fiicnaaday bal mahad celinta iyo mahadnaqa waan u imaan doonaa Farxaanow waxaad nooga sheekaysaa qisadan cid si dhabtii qaabka u dhacday iyo goortay dhacday iyo saacada ahayd garanaysa ma jirto qof kaste xilliyo kala duwan baa la sheegay bal noo sheeg qisada goortay dhacday sida u dhacday bal intaad ka xusato noo taxliili wallahi qisada way dheerta wax maanta laga sheekan karo mal waa aad iyo ayadoo xanuunkii asana bil iyo xoo laga joogo qisadina waqti kale sii soo socotay aad iyo waa wax soo socday aad iyo gubniinka oo kale ka bilow waqtiga gubniinka waxay ahayd maalin khamiisa saacadana ay tahay 3 saac oo subaxnimo maalinimo caadi haye alxamdulillah taariikhdan waxay daatin waxay bishis 12aad marka wallahi maalinta waa maalin naxdin leh ani marka sidaan la socon xaaskada ku gubtay Soomaaliya xaaskeeda gubtay marka bal habeenkaas intaan maalintaan u imaanin habeenka ma isla barideen jawigu sida ahaa sida wax u jireen wallahi habeenkii ayada shaqay ku maqneed meel hay'adda MSF waxay ka shaqeynaysaa meel maternity oo naaska ahayd caafimaad waqti 12 ay aaday oo soo galabnimo haye di kulli waqtigaas shaqay aadeen shaqay ugu maqneed aniga arurtidaas ku soo harnay aad iyo arurtu meeqa waa arurtu waa 3 ma sha Allah yimid caloosha kuuda hadda waxa xamilo aad iyo marka waqtiga ayada aniga arurtida wadii markii bixisay si fiican naloo macsalay nabad baa jirtay haye nabad bay iga tagtay haye anina arurtida gorona kama aadin damaashaad kale ma aadin ayaga aabiyo hooyo waa badkii baan ku wada ciyaar aad iyo waa habeenka 12 ku ahaa maqrib baa la gaaray maqrib kadib waa arur intay soo joodi waa iska garanayeen labada saac way iska saxdeen anina badkii oo ma bixina waardiya baan ayaga waardiya ka alxamdulillah waagi si nabad buu noogu bariyay waagi habariyade aniga qofkan tuhun kama qabin shaki ma qabin sax qof iska caadi ah maqano marka ayada oo shaqo ku maqano nabadna aad ku kala tagtay aad iyo kutrikuteen iyo meelaha sheekay ka maqsad bilaadanku uu hadlaa intaan jiifaan wuxuu iska sheegay oo maseer ku salaysan waa u imaan doona la yiridaas la yiradi dhacdo caadi oo ninkay ku dhacdo aniga tuhun baan ku dhintay sax tuhun shaki sax waxba aan jirin xaas kale ma qabin xaas kale waxaan ku gursaday ma heenin nin qaxooti aan iska ahaa ayaga la daala dhacay ilaahay ku madad naqasana wada joogteen almost 2014 uu dhacay bishii 3 2014 bishii 3 yaad dibkiina wuxuu dhacay 2019 bishii 11aad hada waa 5 sano saddex arur ilaahay wuu nasiib ma sha Allah midna barasaas buu ku jira xaga loo ka soo socday ma sha Allah hawa hataa marka waagi baa bariyay gabadhu wali way maqneed
ولي وقتي أي وقت لو يصير خصن جرت عروت هذه أسود جيسة لكن ما أنت أيده كنت لك تاني شيء كم يلا لو شيء صد هذا يكسر هذا هي أخبار بسورة هذا نسمع ده شكلي هذه وشيدان أم جيرنا الله عليك ninka shaqay waxba kuuma maqnaan maalintii maqan daniisu ku maqnaawa bilcaan sheekadeedu bay ee soo qaaday waxaana ayada marka ayadan naga dhaxeeyay mise dagaal ma jirin waqtiga iga tagaysana ayada qoslaysa iga tagtay waqtiga iimaanaysana qof bedelanaya imaada aniga ma qasab ay maatay 2 saac oo subaxnimo sax isbedelkina 2 saac ila 3 saac u dhaxeeyay بيه أنت اللي كركرينه. مركب الحناش كتير مركب إماتي جوي كلا لا إماتي إسبدل هذا. إسبدل هي. عرفت إنه اسم حواي وأحيانا لو جوين لأن نقطة وقف حنا أقصى. وعلى إنه تطار واي. وببالس كذا مكان بداية. هذه إسبدل يقدر أنت. صح. يعني قاعد قاعد بس معنا. رباحنا مطور. وإذا أنت عين مدين. qof bedelan in markuu arkay aadiyad aniga waqti ayada waan daalna biyaan soo dhaamiyay qoyti waad garanaya tooba kala biyo ka soo qaaday reerkii baa carruurta meesha u sikarisay tragan soo sameeyay ayra daarshay agtii barkan dhigay joodari nafarade nin gurigiisa ma garan gambar mu ku fariisana wixii u yaalo koor ma ku sallina laakiin nafarkii aan isku tuuray qofkan intaan maqnaabo ilaahay kuma danaan isbedelkii biyihiisu iska sii karkarsanayay tabka shidat haye aniga toon markay ugu jirin waan ka sii tagi lahaa toonada ugu jirin hadaan qala sameeyay dileen waan ka sii tagi lahaa sax ilaan meel wax ku sameeyaan hay inaba hayraat wax cabsi iyo wax irdad qabto mala ma qabin ana xageey saafiyan iska haw qofka aad cabsi ka qabo biyo lagu karkaraneen ma ana isdhila waan carar lahay waa ka tagi lahay ma lahayn aadiyad way dhacday sax toona daan qabo waan carar lahaa sax qoftuhuna aan qabino iska lilaahay oo habeenkii caruurtiisa la bariyo ayadana shaqo ka imaato qof bedelan markaan arkeen ani waa mandaalnay marka xoolo nasan la dhididka ka jaw aadiya joodari baad ku seexatay gar waxaan qabay garan shaatiga meel iska dhigay garantii macbiistii aan soo baxay dhinacaan soo tuuray dhanka bidaxa u seexday sax dhanka midiga biyaha iga man doonaan waa 3 saac markaas waa 3 saac waxna alxamdulillah ilaahay habeen iga dhigin aadiya islaamka isdhex urdaa waaga soo bariyay markaas la isdhex qaaday gaari jidka maraan baan marka biyaha noo sheeg sidee u dhaceen waad jiiftay ma gamaada ma gamin qof dhidisana aadiya dhididka kugu jaban baa u jiifay waa soo jeed sax hadeen inda la garan xawa nasashada uu iska maxaasan joodarina ku jiifta markintina waan dheereysay tuhum bay ugu jirin gurigiisa jooga aadiya marka biyi baafa lagu waday aadiya maxay leey jigta hore markay kaliya iga dhacday dhaawac kaliya ka bilowday gacantan sansana u jiifay dhankana biyaha ka bilowday awood baa ugu dhacday qofka halkan taagana taa iska celin waay sax war maxaa si ka maxaa diidilidan hal yaraa soo haray indha wajigan iska dhigay waa wajiga qayb fiisan iyo firirkan iyo xabadkan arkayso waa firir waa hal yaraa ku soo haray ayadana waxay dhahday soo boodee iska celi aadiya aan marka ayada kood hore ugu shubtay cadaab nin lagu dhaxrido baan way ka waad awood beesh awood iska daay hortii hata isana saayiga leexwandhiyo waxaan ku fiicnaa guriga ma jirin barandaan jiifay aadiya guriga inay cararto uu ku dilino isku yahay wax xirlaan ilaahay markii hadda ilaahay isku tutoosi barandaan jiifay aadiya horlay ka booda ama cararay albaabkii bedkan ka baxay sax jidkan ku dhacay taxi iska socda isoo muslim uu leeyahay adoo markaas bedelan intana ay go'on sax ilaa halka ay biyo ku soo istaagaan biyo mee weeba go'day sidana kale noqotay sax qabta arkis aadiya yaa noqotay dhaqso waxaad u malayn qofka in maqaarka laga siibay dab la dhax geliyo aadiya qofkii arka weeyaan way argagixi hadii nin magaalada qaxootiga ku dhashana waa qof walba way garanay aadiya intaan ku badbaado waa inta taksiili wax dhaqso gartay oo isoo dafay sax إما سف الباب كيدو يستجي استالك عافماتك حرة دقحلي صح كدب الباب كدي واردي مركو يركا واسس البابكم بوفيدي ومصيد حجير نكر سناها قرن يو حنقا مركا معويس صح امرجنسي اسكو توسي وان بربري ددكي لا دداوينا اسكا بوكان كيراها امر كبتي waxaan fariista taqtarku fadhi صح war soo gaar war irbada igu daro war wax la igu dhufta nin holac oo dadkii la arkay adiga nabad gubanaysaa qiiq iyo holac dadka ay la argayna aan arkay waan qiiqaya taqatirtu weesastay albaabaan bay xirteen bukaankii yareeraa meel baa bakin la galiyay amki taal
aad bal wala tacaala sax dhaqaatiirtii ama irbado meeshan intay go'in filimada way ku jirtay markii la qaadayna way siiman doontaa way iska dhacday maqaarkay raac laakiin waa daawadii wixii dhan waan ku qaatay waqtiga ayada daawada waqtigaas gacan dhan ugu dambeysay markaan isbitaalka MSF ka baxay dhagaxley marka halkaas aan ku yar istaagnay ma miir daboolanta intaas markii lagu daaweyn hayay mise wali miirka waa joogay mama miirkeedii wuu joogay oo macnaha qof sas yar ugu jira saska naxdintaas mooyee ilan waa dabkii waad gubatay waan gubtay irbada lagu dhuftay intaan filimada ugu socotay unbaa miir lahaa aad meeqa habeen baad joogtay markaa dhagaxley marka dabkii ugu dhacay mama waxaan joogay waxaan imaaday 3 saac iyo wax intaan soo socdo ilaa 8 saac kadib waa lagu qaaday kadib ribaara la gudbiyay ambulance soo istaagtay gaaris baa lagu qaaday gaaris la ilaa aad iyo gaaris baa tacaali adduun iyo waqti ba soo marnay waa kaani hata kugu iman jiray laga ma sheekeenaa wakiidii soo booqay aad iyo Allah ku siiyo ay muslimiinta dhan isoo gurmadeen alxamdulillah waxaan soo maray wallahi wax laga sheekeeyo waa ma sha Allah farxaanow xaaskaadii oo sidaad sheegtay sida ku gubtay ma bal noo sheeg dadku waxay leeyihiin islaamka lagu qabay mid buu meher xadahayay wax bay leeyihiin adiga bal noo cadee sidee wax u jiraan ma gabadh maxay ka shaqeysay waxaas wax jira ma sidaan ku sheegay tuhun oo macnaha pen ah la yiri waxa kama jirin waan gartay hadee nin qooqa markaasna qooq ku jira ma bahan aad iyo qooq ma bisiin ilaa ninkii mugtado reerkaada dalays reerka la duu hami u galo waan reerkiisa hor ka soo adkaa aad iyo hadee reer cusub hadaan rabo waalidka ogaan lahaa qaraabada ogaan lahaa maxamed qarsan wax ma qorsoomayo ma sax hore ma maqashay ama ma aragtay nin la gubay inta lagu gubay adiga dhigtay waan ka maqli jiray aye laakiin aragti ma kor istaagin aragti nina islaantiisa gubtay waan maqli jiray aad iyo dhigtay ku dhicin jirtay ma filays waxa filays ma hada ma lahayn cadaabtana adduunka kugu sugay waxay noqotay mid ilaahay ii qorneed waqtiga dhimashadeedii ka soo horeysay aad iyo dambi dhaaf Allah kaaga dhigan hadan kulli dhimashadeedii waqtiga ku ekeed waa waqtigiisa soo galay laakiin waxay noqotay qadar rabbi kugu dhacday waad mahadsantahay daawadayaal dhegeystayaasha ama daawadayaasha hadda nagu soo biiray waxaan la joognaa walaalkeen Farxaan Salaad Maxamed Farxaan oo sidaan sheegnay hore u gubtay oo runtii mar khatar galay oo maanta alxamdulillah soo caafimaaday baa nooga sheekeynaa taariikhdii oo ku maasanta waqtigaada gaaris baa lagu geeyey aniga xitaa waan kugu imaaday aad bay ola yaabeen dhibka kugu gaaray taariikhdan inta la xusuusan yahay deegaanka Dhadhaab iyo xiriyaha qaxootiga qofka ugu darnaa baa tahay sida loo gubay dadku markay ku imaadaan ama ku soo booqdaan waxyaabihii ay ku dhahayeen maxaa kamid ah maxaa ka xusuutaa dadweynaha nin walba fikir uu gaadhay waa lagu soo daawashada xitaa dad daawasho maado booqasho maado dad wiil baa inta ku gubtay bal fiiri uu maado dad diin isaarayo ilaahay ku mudanta dad iga naxo ku duceynaya qof ii duceynayo qof soo u taagna iska dhacay ani dartii macnaha dhaabac uu yaalo ma arkay qof iska ooyo aan garanaynin waa arkay muslimiinta ma sha Allah waa boqolkiiba boqol wajiyo badan nin walba Soomaalidu aad buu naxariis badan ku dhiirigelin aad markii ka waran gurmadkiisa Farxaanow bal Farxaanow gurmadkii ka waran waa kan ku imaaday Dhadhaab ka soo safray barnaamijka duubay jawaabtii Soomaalida gurmadkii ka waran sidee noqday ma sha Allah jawaab degdeg baan aad iyo aad dali dibad gudaha dalka ma sha Allah Soomaali dadka Yurubka joogay qurbaha meel kasta meel walba meel aan ku dhinade dhulkan cirkan inta ku jirtay aad iyo wax naxo Soomaaliyo siba Soomaaliya aad iyo aad waa ummada kale la mid maaha aad iyo gurmadkaasna muhiim waxay ka mid tahay qofkii caafimaadkiisa daawaha duu rabo cid uu baryaamo la walaalkiiba caabiyo daawo doonan kara aad iyo laakiin hadda waxay haysan maxaa daawo ku doonan waa meel cidlaad ku dhigay laba qaab isma qaadaan alxamdulillah muslimkii gurmadkiisa si degdeg u soo gaaray
إذا أنا سوى هذا المال ما شاء الله قف عن قرني إنه إيونا وارك ما شاء الله قف عن قرنين كوينه إيونا كود عينه يدعينا هذه قعنتي سنة يسوقر وارك هذه الحمد لله مسلم وكم هتينا صومالي ذينا غير الله سيا ما شاء الله قرمتكينا محمو وآدي ديرجلين عافمات كلا وايو ما شاء الله و نيادك كبوكست أديات dadka Soomaaliyeed ku garab istaageen haye أديات قف كو إمادو كديرجليو سانيل كنيا ku dhaho ها واد أركي قف كو إمادو كو تعسينا أصلا أو إشي سأد كدريم إلين واد أركي قف كاقص السيا واد أركي ما شاء الله قف كايا بيا أركي مدي يقول يا مش انت فيري عايزه مدي يقول يا بنات عاد وان تمين شيكاس مدي يقول يا بنات أنيقو مركا مسؤول كيما أو إلهي كون بدرناتي سريرتي u soo socdo aadiyad oo staal gaaris ku jira isbitaalkii gaaris ku jiro qolkii hore la ikana ku jiro yaanin oday daadiis markaan fiiriyay konton jir mara baatiyan qabay marka anay macbiis iyo waxyaalaha isku diirin wixii baatin buu ahaa oo soo booday wuxuu yiri wariya gabadhane yaagu anigi wax iga sheegan gabar buu ku malay gabar buu imalay ilaan baatin buu arkaa maradii baatiga dumarka oo gab igu ah madaxan xumalan in laga xiro halaan yar lii reebo gabadhane yaagu sax anigi wax iga sheegay yaa qosla sax marka waa kaftanka mar caafimaadku kamid ma sha Allah farxad farxana waa mahadsantahay waqtigaadana aad baa ugu mahadsantahay aad baan runtii aniga Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu mahad celinayaa in mar saddexaad adigoo waliba gurigaadi jooga caafimaadkaadi wax badan iska bedelay oo lagu soo celiyay aan kula sheekaysto waliba maanta hilib baadna noo qasheen oo hilib aan ka dhargay martiqaad badan noo sameysay ma sha Allah aad baa mahadsantahay dadku waxay isweydiinayaan gabadha sida ku yeeshay maxaa ciqaaba oo la mariyay sidee la dhahay bal nooga sheekay wallahi ciqaab horta wax la ma jiro ciqaabtii anigu dhacdo bay ku ekaatay aadiyad qeyr Allah siiyay duqaabi aabis baa noolaaw aadi aabahaba nool sax dadka waxay dhahayaan ninkii oo istibaalkii jifo wiilkii baa caafiyo Ilaahay kuma darnaatay yaa la taaban u dhahay yaa liga taaban inuu dhahay waa maqlay dadka dhigtoodun laakiin markaas nin miir doona ahaa aadi waxa kama dhow sax duqa aabahay aabis baa nool awoogi wuxuu yiri cid taaban karta mala gabadha lama taaban karo ayada qaldantay lagama daba qaldamay sax lama taabanayo wax la yeelay malaha sax adoon baa loo dhiibanin gal baa gacanta xitaa lama xirin xiritaan ma jiro wax saa u fiiri malaha sax waliba guriga ugu gubtay 3-4 maalin sii joogtay ma sha Allah dib u sii joogtay wax weerar wax loo geysan هيري وحن دلي وحي دلين بو gabadha ninka fiiriyo suul gorayaan ka gaabiyo oo habaartay faraha laga qaad anigu qof bukaan ii jiifa listaan umar wiilkeeda waxaan rabaa inuu isoo caafimaad qabo haduu dhinto waa taas qaraabay u taala aadiyad laakiin hadda ayada qaldantay asagii aan horta beel ku soo ogaano yaa laga daba qaldamin afar bari kadib ayadoo la qaaday cidoodu iska geeyay sax ayadoo nabad qabto sax waxba aan leeyahay aadiyad ma kula soo hadashaa soo xiriirisa هذا الحريري سدي كلي سيدنا هره ما هاني هي ويس بدي شاي نفتي ددكي عادي والدكي الى جوغي ويل adeerkii asana reegaarsa markaas ay baratay telefoonkiisa ee heshay dad bay soo wixii uu dhiiba inaan la hadlaan rabaa caafimaadkiisa ogaan rabaa way ka naxday ka qoon goonkan heena wax telefoon ku hadli karo ma jiro waa run telefoon ma haysanin kiliina waxay rabtaa in la jiido mugta neefta neef jiid ma lahayn telefoon kuma hadli karo qofku inuu neefta jiida fiican mugta ninka tiirkiisu waa yar yahay ma hadli karo telefoon ku hadla marna almost adiga 20 days telefoon kuma hadlin maalintii kadib yaan qaraabada iyo waalidkii inta soo jiray iyo ka qaqabad waan fiican alxamdulillah niyada khayr u sheega ayagan macnaha niyadis wada marka ilaahay mahdi مين وذا حريرين وذا حرير هذا إليكم دنا تساء مجرين لكن وقت أن دعوة علصها يدري سواء صح عتري هذه فرحانة ودي آخر دون اكتساج جوته لو مت سماه ولا دمنا دون كان عفس كان أذوق أنفعل واحد غير يقول لي عفي ده وسان ويا المجرو لكن عفس كت هذه دم كويه وي دي نيك سمرنا وحلو دري دتك أنت سمرت سمرنا صابرين تلو دري marka de nin dhaanac nawata waxaan noqon war loo maayo nolol u dhaxaysa eeda iska cafi sax
والد كذل كيسوان يلي وعافية حق الله كعافية عنده ما شاء الله سمع قبل وعافية حق الله كعافية ما شاء الله إلهي أنا درت إنه كوي عذاب إلا أنا نيجا دان إلهي وقف قصيدا ويقول إلهي درت عبادها إلا إلهي دان قير هذا إلهي ما عفنا هادية إلا إلهي دا قلت كيش أسوق عفيك هادية لكن دا أمدي سقلت كيش وإلا قف كينو هادية يعني تي حاجة الله آخر هذا وكعافية وكعافية ما شاء الله لكن Soomaaliya markhaati ka ahaada cafiska muhiimada uu leeyahay waxyaabo yar yar oo intan ka yar baan isku cafin lahayn anaga laakiin farxaan wuxuu cadeeyay gabadha sidan u gashay lama xirin lama qaraacin hadal xun lama dhihin il xun laguma eegin wuuna cafiyay farxaan oo su'aasha kale ku weydiin waxa weeye gabadha hadda wali xarigaadu ku xiran yahay rajo ma ka qabtaa inaad dib ugu laabato mise waa sidee taas hadda noo iftiimiso هذا قفرت حنوصن بقى عمي كان إلهي كوم درناته كم جواب الكرت هرتا جوابته iska fudud maama aan ku soo qaadan aadiyad nin hood inuu galay libaax barida hal bari ka gooy hadii hoodkan kugu celin kugu riixi oo libaax fadhiyo libaaxina fadhiyo geesinimo ku gala malaha aad bay adag arinta qofkii noloshii hore wanaagii jaceelkii waa gubtay sidii maqaarkeeda gubtay cabsi aan ka qabat aad cabsi aad weyn aan ka qabeen ku misheegay wallahi billahi baarudow horta hoodkaas aad way adag tahay wad si fiican u jawaabtay hood halistaasna nin bareeri kara malaha aad rag badan baa sas ka qaaday dhacdadaas darteed dumarka qaarkood aad wax laga cabsado wax laga cabsado rag badan bay cabsi gashay ana aan ka cabsanayaa ilmaha isku dhalanay aad lacalla hadii ilmaha soo boqoto حاجة عروتي حاجة كفير صار حاجة هنا فدي موجي وقتي كريم حاجة بقول إنه بالدي بكلمة سبحان الله مركب بالدي يس واحد هالمان غير معه واحد ويديري ما بيك ليها المسوح كلا الوضع ترى والله عيدي إلهي لين بالشيء بس بالشيء waxa hadii la sheego waxa noqon in dabki sugay aadiyad beenta ma sheegay warka mays aad biyo kullu dhaho horta saliida day tahay inta islamaan hadleen aadiyad way ka darnaan lahayd gudaha ku dhicleed jirka ii dhici lahaa ilmashaysa way la tadwiil darad saliid lagu soo gooshin bari uu buu joogay uu dhintay dhimayninkii sax aniteeda ka dhinay aadiyad wixii inuu biyo awood waan arkay biyo inay yihiin waarkiis dumar badan baa falkan aad u cambaareeyay dumarka Soomaaliyeed meel kasto joogan ummadda Soomaaliyeed way cambaareeyeen way dhaleeceeyeen way ku soo duceeyeen wax ay dumarku ka siman yihiin ama raali ka yihiin maaha waa gabadhana kulay dadku waxay dhahan islaanta markay gubayso ninkeeda jacayl bay ka tahay ma misintaas jacayl ma جعل كبدوسازي جعل بس وساعد الله جعل بعد هركا مرة صديق لسقبه أنا ما نقول نور إلى هذا نرجع أو إنه بيكر كري إسلام كل شو بقى ودلي وادم تين وما قلبت لكن أدونكم عذابنا بيا ورا توريا كودانتا ودن تايبا كودانتا صح والله بلا بال هنا كوكشا كودانتا صح قالتها ما ودي جرا وايد على لكن قف نونو إن تكركريسو بيو كردو دمشي نولا لو دحيو waxa ku dhama qof ku dhintay aadiyad wallahi rusay dhintay ayay cadaabtii soo arkay maqaar go'an soo arkay xanuunan soo maray waxa ku dhama qof toori ku mariyo aad baan ugu faraxsanahay inaad cafiso walaasha oo ubad idin maaragtay caruur ku dhashay oo muddo soo wada nooleedeen iyadana waxaan leenahay maadaama walaalka ku cafiyay 10 ku noqoto gabdhaha Soomaaliyeed kale ta faraha badan waxaan leenahay masayrku yuusan noqon jacaylku yuusan noqon kulli isku gubo farxan wuxuu cadeeyay hadduu wuxuu yiri jacaylka isku gubayo hadduu wax jira ma yahay wuxuu dhahay halkiisa ay joogo marka aad iyo aad baad maasantihiin farxad bay ita mar kale aad baad ii soo dhaweysay sida maaragtay igu sheekaysay waqti badan ma ka qaatay raalli ahow ma sha Allah ummadda Soomaaliyeed ina waqti kula qaata ana waan ku waayay ma sha Allah sariirtii aan saarnaa aad iyo aad maanta alxamdulillah caafimaad waa maanta adigu ku arkay waa aad iyo aad ilaahay mahdi waxa loo shukri farxad bay ita aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed haweenka Soomaaliyeed waxa farna u dir lahayd ama masayray ama kuwa masayr ku jira hafarna u dir lahayd horta masayrkan waa halis aadiyad halis aad u loo bareero horta qatar gabdhaha walaalay waxaan dhiilaa wiilka inta gubile kabtu joogo tag isaga tag sax ha gubin dilin waxa ku dili kartaa maadaama uu saa uu kule oo ilaahay kuma darnaatay uu adigi dad kale uu ka daba keen kara oo aawadaad adina ama sirto waxa ku dhaantaa
adigoo badkiisa u firaaqayso ka tagta meeqaa ka isfurtay aad iyo aad waa la kala tagay ma hali sharciga saas u banay laakiin farxaan waxa ka baq marka hadda cafiskan maadaama fi soo qofsa wanaagsan oo furfuran aad dalabka gabdhaha inuu bato loo ninka sida u samirka badan ya aan filay markii dalabaad badan aqbali doonto caafimaad dad badan baa ku soo codsan doona gabdho badan baan ku mishay oo wada kaftameynaa كمان سنة كذب بالآن ما في ركض وأنا يرى الحمد لله هذا اسمه أمري كرت الحمد لله بس ذيك الدمر كده ما تكمل بحد أمين به وسكي مامبو سلعة أنتو جرو أمين به وسكي مان تانياس كونسيرت فاروا كلينا نقولي ها سو كبسط كبسش ما تانياس كبسش ما حلوسة كبسن كرا سيسمات يوم خير لكن واد مسكحة دجنيسة أي دق دقاسها بن عبسك دق خرانا قال هاديات أنا يرى قال هاديات الحمد لله كم قصارن يا ما شاء الله وبد باطش فربنا هذه almost كمان سنة دب مفيرين ما شاء الله ما شاء الله دعوة يا ملك سجوكتان هذه أبدو ما سنتين وتكون ما سنتين دعوة شدا إيو دقيسي مقال كان فرحت بنوته مركلة ولكن أو جروس كوسو لابتي أو دقيح لي كوسو لابتي وأدو نكسر إن ماركتي aan maanta la sheekaysano aad baad u mahadsantahay waan kaaga mahad celinaa waqtigaada insha Allah harjeynina adigoo labisan ama xilli aroos ama xilligan ka farxad badan ina soo maan insha Allah waxaan ka codsanaa arooska xiinaad iga qarin insha Allah hada mahadsantahay salaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh